بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما انتين فرصة ويا شيء إن كلب كان دعوته رمضان كريم. بريهم بقى أمام معلمها نقدم بيه برا برشة واحد لح وريجي سي ورقدوا قرنين مدحتوية ده. أجاسمياش إذا كم ده أول اللي هذا بروفيسور نجيب وقرأ قرمده مدوبي سو قعد سنة يا إن قرمده مدوبي كعاوسه sidii ay dawlad goboleedyada bisha June ugu yeeri lahayd shir ay isugu yimaadaan dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyadu intaas oo kaliya maaha tamar darrada haysa dawladda federaalka ee Muqdisho iyo jiritaan la'aanteeda waxyaabo badan baa u astaana waxa kamid ah kuwan warqada u qorayo leeyahay qaramada midoobay waxaan ku codsanaynaa in bisha June noogu yeedhaan dawlad goboleedyada وأكتهين إن دجناين مال ودو إيربورت كهذا عداء ولورن شري دوكسي توبرك أي حالنا كدواد واحد دجناين شري صدق كون يشم بقول العفر كونه قندراس ريال دبلوماسيين إيوه سردون يدد كلافر بدن وأجنبية ومجالات الشغل ومال الجلان وعي تبعنا هالكاسكور صدق دد كاتدواد جوديه لو جوربا إنتن رمضان تاني كوتشني مدافع على الرعاية dabeedna maanta haddii halkaa la tago 15 qof ma joogaan oo u badan dad adeegayaal oo shaqooyin hoose qabta goor ay soo noqon doonaan Allahu yaclam xaaladda ay dawladda federaalka ee waxaan joognaa Muqdisho xaaladda ay ku sugan tahay shalay ugu dambeysay Xasan Cali Khayre wuxuu dhexdhexaadinayay 3 wasiir oo dawladdiisa kamid ah oo isku haystay sida looga warbixiyo cudurkan ku habsaday ee magaalada aadka u haya Ilaahay ha ka samata bixiye way dad Soomaaliyeed baa ku dhimanaya oo dan yar u badan oo aan kala fogaan karin oo aan daryeel haysan oo waxay cunaan haysan waan u soo ducaynaynaa 3 wasiir oo isku qabsaday ka war sheekaynta ama ka warbixinta xaaladaas ayuu dhex fadhiyay magaalada Jowhar dawlad baa loo diray oo farxalkii iyo saabuntii ay u qaaday kiradii laga qaaday dawladda 20 kun ahayd ayaa ka badneed 5 kun ay sidey magaalada beledweyne maalin dhaweyd gudoomiyaha gobolka la bedelo gudoomiyihii kale imika jooga xabad buu ku soo galay markuu kii kale yiri xilka tirin maayo kana koox baysan soo qaato sidaas ku soo galay saaka xaaladaas oo kale ayaa baar dheer ka taagnaydo meerkii magaalada la bedelayo tirin maayo buu kii kalena uu dul wareegay isagoo ciidan wata isaguna dalka xaaladda caynkaas ku sugan wasiirkii maaliyadda Bayle isagoo ruwaayad aanay ciidana daawanayno wuxuu joogaa cirka iyo dhulka dhexdooda ayuu video call iyo deyn la iska cafiyay iyo waxa ku jiraayo ruwaayadu isagu sameeyay oo silsiladeeda tahay oo walxaanta u sameeyay oo midhaha u sameeyay oo dhar xirashadeeda iyo dikoorkeeda leeyahay ayuu ku jirayaa meel cirkii dhulka dhexdooda oo aan cid daawanayn markuu soo degana uga sheekeynaya farmaajiye Xasan Cali Khayre oo uu leeyahay birita diintii leena cafiyay xaaladda uu dalkaas ku sugan yahay dawladdaas ku sugan tahay waxa ugu qiimo badan ee ummadii leedahay waa dhalinyarada Soomaaliya waa dhalinyarada Soomaaliland labada maanta ay sheekadu dhex taala dheecaankii waratada laga soo qaaday ee irbadaha laga soo tuujiyay ee laga soo guray ee laga soo ururiyay dhalinyaradii Muqdisho u bixii Muqdisho uu ka qatan yahay oo darbiyada fadhiyaan u bixii Soomaaliland inta sida calalka loo lulay oo lagu walacsaday ayaa lagu kaxeeyo iskuuladoodii iyo mustaqbalkoodii lagu baabiyay marka xamar ka degaan soo dhaweynaya in yaroo faraguudkooda loo dhiibaa dabeedna magaalada lagu sii daaya kuwii Turkiga la geeyay ayaa xaaladii ku sugan yihiin aan jirin waa dhaqaalaha yar ee laga ururiyay danyarta Muqdisho ayaa dhalinyaradii Soomaaliyeed ama halkan joogaan ama halkaa joogaan lagu baabiinaya oo ay ka simeeyeen taasa waxay leedahay wada hadallo ayaanu galeynaa maadaama aanay wadan kalsoonidii shacbiga Soomaaliyeed ay mas'uulka sheeganayso inay mas'uul ka tahay maadaama aanay u adeegin dadka Soomaaliya waxaan madaxweynaha iyo xukuumadda Soomaaliland ugu baaqaynaa
inaanay ku sharciyeynin dadka Soomaaliya oo aynaan godob ka gelin ummadda sideeda kalaba u siriirsan ee u baaba'aysa waxay la tahay nidaamka xamar ka jira inuu gacanta maroojin karo Soomaaliland war annaga oo aan waxba ahayn oo jabhada oo geedo hoostood fadhino qori aakaayseena gacmaana la maroojin kari waay 1968 bishii January 17keedii Mingiste iyo Maxamed Siyaad Barre ayaa Jabuuti ku kulmay dadaal ay igad iyo dawladda Jabuuti ka soo shaqeeyeen oo doonayeen inay ku nabadeeyaan geeska Afrika bishii October 12keedii ilaa 12keedii Reykjavik oo Iceland magaalo madax u ah waxa ku kulmay madaxweyne Reagan iyo Mikhail Gorbachev ajendayaashoodii waxa ku jirtay in xasilooni lagu soo celiyo gobolka geeska Afrika marka taa laga hadlayna waxa weeye Soomaali iyo Ethiopia in la heshiisiyo heshiiska ka dhacay 86kii bishii January Jabuuti ayaa sii xoogaystay annaga shabakadihii diblomaasiyadda ay soo joogay noo sheegeen Mengistu Hayle Mariam maruu la kulmay Xasan Cali Mire oo SSDF gudoomiyay Axmed Maxamuud Siilaanyo bishii April 10keedii waan marinay 8 ahayd wuxuu culays baan saaran isagoo bustan saaraya si aanan uga xanaaqin heshiiskaas waa markana leeyahay 15 kilomitir dib soo noqda iyagana leeyahay 15 kilomitir dib u guura dubdubta iyo siriqdan loo dhigay maalintaas waanu ka soo siibanay waanu ka soo baxnay 27 burcaan soo galay 28 cadaadli baan soo galay 21 Hargeysa aan soo galay Mingiste Maxamed Siyaad Barre soo diribay joogeen 25 guuradii oo ayuuda ayuu dabaaldegeen sidaasaad super powerskii adduunka iyo labada dawladeed dabka labada waqooyi kaga baxay ay ugu suurtoobi weyday in anaga gacanta la maroojiyaan cid kale oo na maroojin kartaana ma jirto ilaaha taajira ayaa talada leh oo ay tiisa noqotaa wixii intaa ku xiga waa shacbiga iyo awoodiisa waxaan dawladda Soomaaliland iyo xukuumadda Soomaaliland ugu baaqaynaa ma joogno meel aynu kula fadhiisano oo aynu ku wada hadalno oo aynu ummadda Soomaaliyeed ee tabaalaysan ee koonfurta joogta ee wax waliba ku socdaan ee dib waliba ku socotay tii dabiiciga ahayd iyo cuduradii uu cadaadiska iyo dilku u dheer yahay inaynu ku sharciyeyno dawladdaas in la fadhiisano inay campaign iyo salaan uga dhigato Soomaaliland ayaa nala hadashoon wada hadal ku jirnaa waxyaabay ku hadlaan waxa kamid ah xalay goobjoog baan daawanayo mid channel sheeganayo muraayada midmadow wajigiisa oo dhan qariyay xidhnaaba wuxuu lahaa caasimadan aan geyno madaxweynaha aan siino aflagaadaan u haysanaa de waxa anagu waanu ka helaaba waayo raabo cusub oo kale oo dada ayaaba na sii taageeray markaas ay hadashaan macnaheedu waxa weeye Hargeysa caasimad ma noqon karto waxaan ay haystaan calan maaha intaas un baa u jeedaan tiraadaan dadkeyguna sidaas ay u fahamsan yihiin oo ay u yaqaaniin waxa soo raacay waxa weeye hadii goor la yiraahdo waxbay tabanayaan mid lahaa wasiirka arrimaha gudaha ahay oo Sabriye la yiraahdo ayaa maalin dhaweyd lahaa tabashadii yaan wax ka tabanaa ninkii loo cabanayay wax laga tabanayay waa laga tawday dabeedna fooda inta la kala leestaray ayaa la kala calaf qaado kaba bira waa taanidii soo gelinay marka cid alle ciidan wax ka tabanayna ciidan ka cabanayna ma jirto hadalka waxaan ku soo ururinayaa xukuumadda Soomaaliland yaani dadka Soomaaliyeed ku sharciyeynin qalfoofka dawladda u eg ee aan dawladda ahayn ee xaaladda ku jira ee magaalada xamar xaaladda ku jirto ee goboladii aan shaqo ku lahayn ee balcad hadii tagaysa dawladda u raacaysa jowhar baa $20,000 lagu kareystay maxaad gobolada ka shaqeeya aad u malaynaysaa waa 90 kilomitir cod kalsooniyeed baa ka yaal madaxweynaha Jowhar cod kalsooniyeed baa ka yaal baarlamaanka Jowhar saasay u qasantay taasaa doonaysa dabadeynta indhaha dadka ka jeedso waxa soo dhan inay inaga nagu soo jeediso iska dhigto dawlad la hadlaysa madaxweyne la doorto cod dadweyne lagu doortay ayay leeyihiin aynu madaxweyne ka dhignayo aynu caasimad ka dhignayo hadalka waxaan ku soo ururinayaa ma haboona mana mudna mana aha sharafta iyo karaamada shacbiga Soomaaliland in kuwa la hor fadhiisto
marka ay Soomaaliya la timaado dadka masila oo codka dadka haysta oo kalsoonida dadka haysta waa la fadhiisanayaa inta u dhaxaysana waxayna faran haddaynu nahay reer Somaliland inaynu darisno mushkiladda ay ka tashiga iyo arrinta wada hadallada iyo arrintan midnimada iyo qeexideeda iyo halkay ka timid iyo waayihii ay soo martay iyo tagtadeennii iyo taaladeena maanta oo aynu si fiican u xadhno oo aynu u qeexno ayaynu u baahannahay si aynu inagoo hubaysan u fadhiisano miiska wada hadalka sidaasaan loola hadlayn codkii shacbiguna sidaasuu yahay kii dowladduna inaanu ku darsamaan jecelnahay innagana laynagu quuqin maayo wada hadallo iyo waxaynkaasa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu